وهاك داوديال waxaan ku suganay hadda meel aan ka fogeyn afaafka hore ee xarunta dambaarista Soomaaliland waxa goor dhaweyd halkan la keenay in lagu soo qabtay inaan daayar oo 24 saac ee ugu dambeeyay laga baafinayay magaalada Hargeysa waxaana sidoo kale ku sugan afaafka hore ee xarunta dadyow tiro badan oo u yimid kuurgalka xaaladan waxaana xusid mudan in taliyaasha laamaha amniga ee Soomaaliland ay guud ahaan halkan ku sugan gaar ahaan taliyaha ciidamada booliska Soomaaliland qaar kamid ah ehelka inanta laga xaday oo telefishinka Sam News la hadlay ayaa ka faahfaahin ka bixiyay habka loo soo qabtay ninkaasi waxaana intii si raaciyeen in ninka la qabtay uu sheegay inay yihiin tiro dada oo ka ganacsada arrimaha la xiriira xadida caruurta waxaana la sheegay in ninkaasi uu sheegay inay yihiin dad ka badan 20 qof bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo ah Yuusuf Ali Saciid Diiriye inanta yar ee la qaatay adeer ruma waxa dhacday xalay saqdii dhexe in loo yeeray dabadeedna lagu meel guri jaarka halkaas ay inanta yareed lagu hayaa kadibna aanu meeshii isweer ka qabanaanu haynay xaladna halka waagu noogu bariyay wax natiijaan aanu ka weynay saaka markii aanu soo baxnay ayaa la yidhi inanta yareed State House-ka lagu hayaa xaqii State House-ka aanu soo kacnay kadib waxaana loo soo sheegay inanta yareed in gurigii nin Oromo oo gacanta ayaa u keenay waanu yaacnay gurigii baanu tagnay ninkii inanta yareed waan isku qabanay saldhigaanu geynay waxaanu soo gudbinay xirada CID-da dhammaan dadweynaha Soomaaliland ama shacabka oo dhan waxaanu sheegaynaa inaanu inantayadii yareed helnay ducadii iyo dadkii noo soo duceeyay masaajidadiina looga soo duceeyayna ilaahay dartii baan inantayadii yareed u helnay marka lagu qabto ninkii xaday baa soo qabtay waa ninkii xaday laftiisii waa Orom isaga qirtay waxaanu sheegay inay ka badan yihiin intan joogta 10 qof oo kale uu sheegay 10 kuba State House-ka ay ku nool yihiin oo xaday dadku noo sheegay waxa weeyaan dad badan oo State House-ka jooga xalay toole waxa loo sheegay inanta yar in State House-ta lagu hayay quraacdii meel laga quraacsiiyay laga qadaysiiyay laga cashaysiiyay saaka laga soo quraaciyay saakana gurigii kale halka agtayada la keeno inanta yar loo soo dhaweeyay inanta yar waa tan xirada CID-da ku jirta wayna caafimaad qabtaa wayna caafimaad qabtaa xiradan isagu ma iska soo celiyay maxaa tiri isagu ma iska soo celiyay mayay isagoo gacanta jiidayo isla meeshii ku tuur ayaa la helo la qabtay biriishka State House-ka inanta meerada dhinacan kaga haysata oo farxaan leeyahay hawlgalka ugu weyn inanta asaa geysatay kadib waxay noo sheegtay inanta yar inuu ninkani watay uu ka cashaysiiyay halkan markay saan ugu sheegtay uu ka cashaysiiyay kadib waxaanu ku ninkii maad garanaysaa kadib ninkii way sheegtay saambusaa qolada sameeyaa weeyaan bay nagu tiri guri bayna geysay markaa Axmed Xaashi oday soo gurmays gurigiisa guriyaha ka dambeeya ayayna geysay dumar baa markaa guriga jooga waxa tiri guriga xalay halkana la keenay markii la keenay inanta yar halkana uu ninku la joogay uu watay xataa suuliga markuu galay uu la galay bay tiri dumarkii markay sidii noogu warrameen waan soo baxnay CID-da ayaa la soo hadalnay inaan kala tixraac loo sameeyo State House-ka ku haysta dhuxul oo qoladan jareerkaana dabeetana kiina waa la noo sheegay kiina ina Naasir Xuseen Mataale baan ag dhigay ninkiina dabeetana war soo qabanay markan halkii isku nimid ninkii wuxuu noo sheegay dabeetana ninka laftarkiisii ku kala dabeetana guriga baan dib hadana ugu soo noqonay hore ay gabadhu markan kii soo qabanay dhuxusha ayaa ka dhuxusha taana guriga keenay buu xulugay gurigu deganaa oo State House-ka dhexdiisa gurigii oo la xidhay oo ciyaalkii uu lagala qaxay ayaanu tagnay jaararkan weydiino waxay noo sheegeen inay saaka gurigan laga kaxaysta ciyaalkii wixii ay ka tageen kadib waxaanu ka soo noqonay gurigii Axmed Xaashi oo ka dambeeyay gabadhii baan wareysanay nin kale noo yimid ninkii baa dabeetana markuu soo galay ayuu yeedhay kii aanu sidnay maxbuuska dabeetana wuxuu garaacay telefoon markuu garaacay baan sheegay ku lambarkaas uu garaacaya waa ninkii waanu qabanay telefoonkiina waanu soo qabanay kadib ninkii wuxuu tagay xeero halkii inanta yar meesheedii isagoo inanta yar tunka saa ugu sita oo kayn ku sida ayay ciyaal qabteen halkan looga sheegay dabeetana sidii baanu ku tagnay anagoo gaadhi dhanoo halkan ciidanka CID-da ciidanka waxa naga sii horeeyay ciidankii aadan shiine isagoo markaa gacanta ku qabtay oo ay wadaan ayaanu tagnay ninkii ma la jirdilay qaar wararka qaar ninka wax jirdilay ma waxba kama muuqdo waa la hayaa ninku halka Bruno kule waa nin madow ilaa imka qiyaastii 5 nin baa la hayaa 100 ninna waanu nahay buuri waanu farbadanahay buuri marka oo ka ganacsadeen caruur waxaan marka waa la hayaa baaristana koo dhicmayna ciidankeena ba gacanta ku jira dhankooda qaar kamid ah dadyoog isku yimid goobtan ayaa telefishinka Sam News la wadaagay dareenkooda ku aadan bal dhacdadan falkan dhacay horta waa ceeb
waxa adduunka lagu arka maaha ilmo nool oo habeen balukaadi ilmo nool oo inta jingadoodii gurigoodii la jeexay lagala baxay dee horta waa arrin inagu cusub dee waxaan leeyahay anigu horta ilaahay baa mahad leh ilaahaa ilmahaa yar gacantii waalidiinteeda ku soo celiya gurigoodii baa horta mahad iska leh khaa'inimo iyo daalinimo meeshaa ka dhacday dawladdana waxaan u sheegayaa dadka waxaa samaynaya ee gudaheenna ku nool maanta uun maahe waxyaabo hore oo qarsoon ayaa jiraan ku leeyahay maamo ilaahay baanan mahad celinaynaa daalimiinta ilaahay baa naga qaban ilaahay baa naga kaxayn waxaananu dal iyo dawlad iyo madaxweynaha ka codsanaynaa dadka in la naga raafo wadankoodii la naga celiyo oo dadkaasi annaguna aanu indho dheer u yeelanno shicibkuna iyagaasi idea dee aan iska ilaalinno oo istaan waliba dee ilmaheeda iyo qoyskeeda iyo wixii jaarkeeda yaallay iyo wixii ma garanaysaa ayay dee iyo cidda dee guriga laga kiraynaya iyo cidday ka socoto inaan aqoon la'aan waxba laga kirayn waxaanu dawladda iyo shicibkaba ku codsanaynaa dadka waxaa samaynaya in gacan bira lagu qabto waddankana laga raafo haddii la haydha dalka iyo dadka iyo dadweynaha waxaan leeyahay iyo dawladdaba arrinkaa hoosa loo dhaadhiciyo oo dalku ma nabad qabee dalkan ha la ilaaliyo oo dadweynuhu ka kaca fadhiga dalka ka kaca fadhiga oo carruurihiinna iyo duwadkiinna iyo dalkiinna iyo dantiinna ilaashada falkan waa fal fool xun aad iyo aad buu u fool xun yahay fal laga naxo laga argagaxa weeyaan dee ilmaha aqalkoodii lagala baxay waa min subxaan allah waxaan dawladda ka codsanaynaa waxaa sameeya falkaa la socda ayaa ilaahay baa boqor horta ilaaha caalamka ah baa aynu barinaa goor walba ilaahay soo celiyey ee dadka awlaaddoodii u soo celiyey ayaa horta mahaddaa iska leh waxa kale dadka waxaa samaynaya aqalladii laga baxayo oo gacan bira in lagu qabto dawladdu ka qabato